Assalaamu calaykum walaalay qaaliga ah waa idin salaamay meel kasta adduunka joogtiin waxaan idin rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin waa walaashiin Hinda kanaalka igala socotiin waa Simbil Hinda maanta waxaan idinla wadaagi rabaa sida loo suubiyo bacda cilaanka iyo sida madowga sida loo qaso iyo cilaanka bilowgiisa oo hore usoo geliyo haddana laga codsaday inaan kusoo celiyo daawasho wacan. Assalaamu calaykum walaalay qaaliga ah waa idin salaamay meel kasta adduunka joogtiin waxaan idin rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin waa walaashiin Hinda kanaalka igala socotiin waa Simbil Hinda maanta waxaan idinla wadaagi rabaa sidaan u qasto daawo madowsada nashqad yaroo fudud aan rabay inaan saarto marka waxaan is dhahay horena ma usoo gelinin sida loo qasayo daawada laakiin waxaan hore usoo geliyay bacda sida loo sameynayo inkastoo videogaasitooda mugdi badan ku jiray haddana waa idinkugu dari doonaa sida bacdana u sameysto marka la socod wanaagsan. haddana waa kan ahaa sidaan u qasi lahay waxa ugu horeeya u baahanahay waxaa waaye daawo madowso ani shirkadana isticmaalaa Tanjo dhaladan yarista ku jirto kartoonkaas iyo alaabo kale laakiin dhaladaas ayaa noo muhiim ah iyo wiilan ku qasto ani wiilkana isticmaalaa markasto iyo qaandada yarta ku jirto iyo biyo qandac meel dheer ah marka kana haddana sidaan u qaso lahay iyo marka qasaysidna waxay ku xiran tahay inta aad adigana isticmaashid anigoo kale hadda waxaan rabaa labada gacmood inaan saarto marka qiyaas ani ugu filnaa qasanaya saas oo la socda. haddana waa kan anigoo qasanayo biyahan saan hore u sheegay waa qandac meel dheer ah waxay ka caawinayaan daawada kuskuus yar ee leedahay kuskuusaasitooda inuu iswaraaco iyo dhalaalo marka marba kisaan ku shubaya waa ilaalinaa maxaa yeelay biyaha haddii kaaga bataan waa inaa ku jira daawo madowso kale marka waxaa fiican markasta intii kaaga badan lahaayeen inay kaaga yaraadaan markaas biyo yar waa ku dari kartaa haddii kale daawo lay kusii waday maanta o dhan meesha ku daawada kaaga khasaaraysa ayada dhanba marka kasaha saasa zaa'idan usoo garaaci doona saad ula socotiinba marka saasa rabaa inay u dareerto marka hadda meelaan iska dhigayaa intaan bacda ka suubsanayo sidaan bacda u suubsanayn waa idin la wadaagaan idin dhahay marka waa kana bacda marka la suubinayo waxa ugu horeeya u baahan tahay waxa waaye bacda baastada bacyo kale lagu suubina way jiraan sida bacyaha hadiyada lagu duubo kalo maqas iyo biinkaas yarka ah oo kamarada lagu xirto iyo sharooto ama koolo anitana isticmaalaya afkay sakiin yar ku wadataa jaritaankeeda wuu fudud yahay haddii aa midda wareega isticmaalay sidoo kale soo jarjaro dhowr xab camal meel kusoo dhagso dhowr jab oo adiga la eg suulkaaga camal dhirirkooda haddana waa kanaha bacdaan jaranaynaa dhinaca kale waa hore looga soo jaro maadaama baastada laga shubanayo waa kanaha marka dhinaca kale ka xirneydna aan ka jaray waa inaan simaa oo dhinaca kale aan u gediya iyada dhanbabo sidii bacda markay baastada ku jirta ugu jirta camal ma u haayo si kale aan u hayaa marka hadda laba midba waa loo jari karaa ayadoo dheer aad ka jari kartaa kistaas yartaahoo calaamada leh ama laba intaa ka kala dhigtid saas aana fudud aana ku yar yani zaa'id kuuma dheeraanayso markaa jaray sidoo kale qofku cusubna saasoo kale u fiican hadda marka kistaan yarta laga jaraa oo laabka yaroo ku jira ahay si ay wada sinaato geesaheeda laabkan yarka marka laga jaro kadib aan la duubi doonaa insha Allah bacda haddana waxaa bilaabeynaa sidii loo laabi lahay saasa gacanta ugu wareejinaysaa leh
saas uma sii dhib badna. Ayada muhiimadeeda hadhow waxay tahay afka oo kasoo bixi lahayd daawado kale ama daacilan suubinayso kale, afkaasaa la rabaa inuu saxmo. iyo hadhow meelaha is leedahay waxaa kasoo bixi kara ama waxaa kasoo daadi kara daawado kale in si fiican loo sharooteeyo ama sharooto lagu dhajiyo. marka hadda biinka afka gelinaya si oo duleelkaas iigu saxmo. marka la socod wanaagsan. haddana waxaan ku bilaabeynaa marka saas loo adkeeyo. markaa biinka gelisa xataa kadib waa inaa sii adkeysid. markaa adkeysid kadib koolada lagu dhajinaa ama sharootada. marka haddana waa kana meeshas yartahay iska qabsanayso ku eg tahay bacda camal lagu bilaabaa koow. saasa loogu wareejinaa waana lagu sii wadaa ilaa iyo hoos ee uga dhamaanayso. meeshas dhigaysid way furan tahay oo kale ama meesha bacda iska qabsanayso kale waay. waa ku wareejinaysaa koolada ama sharootada. marka ilaa iyo geesaha dhan ku wada dhameysaa. saasa ugu wadaysaa kadib waxay noqonaysaa gudahana in loo gudba. iyadana gudaha xataa waxay ku leedahay calaamad yar iyadaasoo kale bacda markaas loo soo wareejinayay iska qabsanaysa bacdo kale. marka waa kaas taasi tudin waa in taas loogu dhajiyaa. ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا. waatana haddana bacda iyadoo diyaar ah waxaan soo qabsanaa marka bakeerigan wuxuu iga caawinayaa inaysan bacdan nuxnuxsanin marka aan ku shubayo daawada. hal dhinaciisaas iigu jilicsanaanaysaa. marka laba gacmoodna waxaan u isticmaali karaa markaas weelka oo waxaa iigu jiray daawo madoosada. gacanna ku qabanaa gacanna qaandadaas ugu soo daadinaya meesha dhexdeeda uu ku aadinaa camal. marka waa kaas saas uga socda. haddana waa kana waa ku shubtay bacda daawadii. afka sidaan ugu xiraaya idin la wadaagi doonaa. iyadana meesha ugu horeyso laga xiraayana waa afkaas hore. marka waxaa fiican sharootada intay kaaga yaraa lahayd inaad ku celcelisid oo dadaal leh. hadhow adigoo filanayna dee wixii kugu soo daataan gacmihi kaa halaabayo. hadda iyo haddana daawo qas bac kala suube. waxaa fiican ku badi intay kaaga yaraa lahaydba. ani saasaan sameeyaa waa ku celceliyaa intaan saara haddana mid kale sii kor saaraa. halaas dadaal intaad dadaaleysidna waxba u qasaareysid. marka waa kaasaa geeskaas xatiisaas mala dhaafaya isagana. dhinaca kalena horaan ugu soo bilaabay. hadda marka waa lalaabaa. afkan hore lalaabaa la yareynaa. maxaa yeelay hadhow martid inay aariye iyo wax kaaga jiraan ee bacdane kaa noqoto bac khafiif ah oo yani daawada marba meel ay ordayso kale. waxaa rabtaa wax yaroo kooban oo meel yar ku jiraan inay kuu noqoto. kadib marka saas loo yareeyo afka haddana sharoota lagu dhejinayaa. marka anuuntiisa waa riixoya hoos leen usii riixoya. waxaan sugaa ilaa intaan ka dareemaa bes waa intaan ka badan ma dhaqaaqaysa. markaan is dhaho aan joojiye marka laabitaankii. waa inaad gacantaada ku ogaatid bacda markaa haysid. markaa istiraada bes waa intay ku egtaa intaan ka badan ma dhaqaaqi karto hoos ma u socon karto. yani waxa ku jiro gudaha daawadan ka wadaa. markaasaad joojinaysaa laalaabitaanka lalaabaysid. kadibna waxa waaye geesihi haddana sidii ugu noqonaysaa. waa ku wareejinaya haddana saas haddana ugu laabay geesi kale taasoo kale waaba dhamaataba. haddii ay tahay marka u horeysaa soo booqanaysa kanaalkeyga waa ku mahadsan tahay soo booqashadaada. fadlan subscribe ii saar. haddii aa hore igula joogtayna like iyo share iyo comment. waana mahadsantihiin dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Assalaamu calaykum walaalay qaaliga waa idin salaamay meel kasta adduunka joogtiin. waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin. waa walaashiin Hinda, kanaalkayga la socotiin waa Simply Hinda. maanta waxaan idin wadaa casharadii cilaan barashada ka mid ah oo horeyna aan usoo geliyay, laakiin hadda layga dalbaday inaan kusoo celiyo maadaama mugdi ku jiray sidii bacda cilaanka loo suubinayo camal. oo kusoo celiya iyadana saas oo kale cashiro kalena qaar waa kusoo celi doonaa. marka wuxuu aad iyo aad u anfacayaa qofka hadda bilowga ah oo hadda baranaysa meesha cilaanka laga bilaabayo iyo meesha laga maraayo. sidaa ujeediinba waxaan ku bilaabay wareeg yar ah, wareegii haddana wareeg kale sii dhex geliyay, kadib ulahana ku xigaan marba meelna aan u jeedin doono iyagana saas oo kale. maxaa ila hadhow way ku qaban kartaa intaa hal dhinac u baratid, hadhow waxaa ku qaban karta inaad dhinac kale kasoo bilaabido kale. dhinacaas kale kasoo bilaabaysid gacantaada ma la qabsan, marka ushi inay kaa qalqaloocataa laga yaabaa. marba waxaa fiican markaad kow baranaysid waxa xarfaha iyo shaqalada cilaanka marba meelna u jeediso. haddana waxaa ku xigo shaqalkan oo isagana u eg saddexda afkeedu leeyahay, laakiin oo la iska daba xiriiriyo si yar ah loo sameeyo waaye. marka isagana saas oo kale marba meel aa loo jeedinayaa afkiisa. hadhow way ku qabanaysaa inaa u baahatid inaa marba meel u jeedisid. marka saas darteed hadda intaa bilaa qofka ee tahay waxaa fiican inay gacanteeda la qabsato. marka waa kana ku xigo canjeerada camal ah. asaa horta ugu dhib badan dadka dhahaan, ani ahaantiin saas aan arki jira inuu asaga ugu dhib badan yahay, laakiin mar hadda asaga qofka ee barataa la dhahay wax kalo oo ka hor imaan karo dhibi kara maba lahan. marka asagana saas oo kale waa lagu celceliyaa, marba dhinaca la wareejiyaa, marba dhinaca laga bilaabaa. haddana waxaa ku xigo xarafkan oo u eg ama yuda af ingiriiska. marka ayadana saas oo kale marba meelaan u jeedinayaa. qofka baranaysan saas oo kale saan hore u sheegay hadhow marba meelna u jeedisa ku qabanayso. haddana waxaa ku xigo xarafkan oo saddexaad u eg isagana marba meelaa u jeedinaysaa. marka hadda intaa markaan dhameeyo marka waxaa ku xigi doono intaa hadda meesha taalo oo iyagana la isku dardaray ama waxyaabo yaryar oo cusub aan ku daray. oo iyagana waxaa waaye shaqalo iyo xarfo. waana hadda inta ugu fudud oo qofka cilaan inay barata haddii rabto gacanteeda yani la qabsato sida loo suubinayo cilaanka ama sida meesha laga maraayo iyo waxaas oo dhan waa inta ugu fudud ee qofka la qabsan karto. marka intaan markay gacantaada la qabsata aragtid kadib ana shaqada loo gudbi karaa. intaan hadda arkaysiin in qaar kale insha Allah aan soo wado oo la isku dardaray ana shaqad noqonayso. qofka markay cusubtaana waxaa fiican xarfaha iyo shaqalada cilaanka kow inay barato, kadib waxay u gudbi kartaa nashqadaha. horena u soo sheegay canjaladayga horey. marka waa kaasaa la socod wanaagsan. hadda kan saa ujeediin waa wareegi kow ku bilaabayay iyo saddexda afka yaryariiska lahayd oo saas loo wareejiyo waaye. ayadana soo kale marba meel ka bilaaw gacanta iyada la qabsan doonto. marka haddana waa kana waa ushi dheereed. ushi haddana waxaa kor ka saaraya saddexdii oo yaryariiska afka yaryariiska lahayd oo ayadana soo kale marba meel loo jeedinayo. marka wax saas u sii dhib badanba ma aha, laakiin horta muhiimadda waxaa ah qofka waa inay hami u haysaa eena ka go-an tahay inay barato. yani qof kasta way rabtaa inay wax maxaa la dhahaa ay qurxoon saarata ayadoona saaluun saf u gelin, dad toogin, ilmaheeda saasoo kale ku qanciso, nafteeda ku qanciso. marka waa kaasaa la socod wanaagsan. intaanana hadda codka ku keenaya inta ka dhiman nashiidan saari doonaa insha Allah. haddii ay tahay marka ugu horeysa soo booqanaysid kanaalkayga fadlan subscribe ii saar. haddii aa horey ula joogtayna like iyo share iyo comment. haddii aad su-aalo ka qabtiin hadda inta aan sharaxay ama inta hadda aan soo dhigay maanta su-aalda ka qabtiin hoos iigu reeba insha Allah waa idinkaga jawaabi doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
السلام عليكم ولله قليقة وإن سلامي من تستعدون كجوبتين وحان راجيناين عافمات قبتين وولاش إنتا كان الكايكا سعودين ناسين بليهن دا ما انتو حايدين ودا عشرة دي إذا برشة كامد وهورينا عسول كلي لكن لقد البدينا كسو حليو مركوا كانها حرفك وهوريو إيه شغالة marba dhinaca u gediyey si ay gacanta ula qabsato saa hore idinkugu sheegaba qofka markay barbarad tahay marba dhinaca inay u gediso hadhow dhinac walba kasoo wareejiso ama dhinac walba ka bilowdo ma ku dhibayso ma kaa qalqaloocanaya camal marka xarafkan kale asagana waxaa ku xigo u eg oo asagana la isdhex gelgeliyey insha allah nashqado kusoo qaadi doonaa marka la socod wanaagsan saasaa ku dhameynaynaa marba meel oo shiidinaysaa si gacantaada ula qabsato haddana waxaa noogu xigo amba qaroofo oo si fudud loo sameynayo marna kor laga soo bilaabayo marna hoos laga bilaabayo asagana xoogaa yar wuu badan yahay xarfaha oo wuxuu ka mid yahay xoogaa yar adag saa hore usoo sheegay casharkii horene canjeerada iyadana waxaa waaye xarfaha adag ay ku jirtaa marka waa kana labada nuucba u sameyn kartaa haddana waxaa ku xigo calaamadan yartaa oo usha u eg laakiin ul laga qaroofiyey ama la qalqaloociyey camal ayadana waxyaabahan oo kale lagu buuxin karaa waxa ugu fudud oo lagu sharxi karo saan waaye calaamada roobka camal u eg ama ilinta camal u eg iyo camba yariis lagu sharxi karaa haddana saa u arkeysiin boxkan soo sameeyey marka siyaabooyin badan jiro ama qaabab badan oo loo buuxiyo dhexdiisa saanan ugu fudud inaad marba box buuxiso oo saan isaga daba xiriirto ama inaad dhibco
dhibac ku buuxiso ama daar taxti waa isku dardari kartaa. Haduu kusoo bixi doono fiiriye kan waa isku daraa, marna waa buuxinaa marna dhibco aan ka dhigi doonaa insha Allah. Haddana waxaan ku xijinayaa xarfihii iyo shaqalihii aan hore usoo qaadanay oo la isku dardaray oo marba nuuc laga dhigay. La socod wanaagsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.